بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي baa mahad leh maanta inoo suurto geliyey Somaliland inay qabsato doorasho isku sidkan oo culeyskeeda leh oo cadawguna sida ay u dhacday iyo nabadgelyada ku dhacday uu ka naxay wixii Somaliland jeclaan ay ku farxeen ugu horeyn waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa shacbiga Somaliland codbixiyaashooda rooliya caruurba doorasho si wacan loo campaign gareeyay oo nabad leh oo nin waliba wixii uu dadka ku soo jiidanay ku hadlay sidoo doono soo xora oo la faragelinin inay noo qabsoontay aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan u mahadnaqayaa codbixiyaashii nabadda ku codbixiyey ciidamadii ilaalinayay guddigii doorashooyinka hawshaa waday axsaabtii iyo ururay tartamayey oo si bisil u tartamayey waana sharaf ay soo hoysay Somaliland kuna dhismaayay qaranka Somaliland waa dhismihii qaranka Somaliland kor loo sii qaaday taa waa mahadnaq shacbiga oo dhan iyo Somaliland oo dhan qodobka labaad aan ka hadlayo waxa weeye taageerayaasha iyo xisbiga kulmiye oo doorashadii maanta aan ku guuleysanin oo laga yaabo in badan haddii natiijadii aanay soo iyo ku badsan inay shalayba iyagu guuleystaan shacbigu codeeyay oo daraadda shacbigu u codeeyay oo ay inta dalka maamulayeen waxay ahayd in aanu sii wadno maamulka dalka oo mar saddexaadna layna sii doorto maanta haddii lagu doorashadii waa la iska horeeyaa kama cadhoon karaan kama xanaaqi karaan dhowr sababood awgood waa marka koobaade shacbigu shalay iyo daraadba codkooda waa siiyey waa ku ixtiraam waa ku mahadsan yihiin maanta hadday cid kale yidhaha waanu hormarinaynaa oo codkoodii siiyeen dee waa dimuqraadiyadda iyo wixii loo qaatay waana taynu doorashada ku gallay waxaanu doorashada ku gallay waxay ahayd in doorashadaas ay dhisto qaranka Somaliland may ahayn in qof dhisiso may ahayn xisbi gaar ah in lagu dhisayo marka doorashadii sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa la soo qaatay waxaana noqotay mid dhisaysa Somaliland mid isu keenaysa mid xidhruuxda ka saaraysa waa inay noqotaa taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeedada koobaad aynu doorashada u galay kumaynaan gelin mar walba in inaga layna doorto waana dastuurkeena ku qoran in shacabku maalintaa uu cod ka leeyahay kolba ciddii dalka uu codeeyo sidaa daraaddeed waxaa kale oo iyada ku jirta qodobka aynu ku ogolaanayno wixii natiijada soo baxay waxa weeye in badan ayaan anigoo murashaxa oo madaxweynihii dalka ah oo xilka intaa laag haya ka ballan qaaday maalin warar hadlaba in aan aqbalayo natiijada soo baxaysa aniga iyo xisbigayga iyo intay codeysay ballan aynu qaado ahayd oo in badan ummadda u sheegnay waa ballan weyn te ballantan qaadana ka baxayno shacbigeena u sheegnay maynaan odhan oo kumay jirin haddii la dooran waayo oo codka la siin waayo waanu cadhoonayna iyo waanu xanaaqayna kumay jirin dhalinyarada waxaan u sheegayaa doorashadaanu galay waxay la mid tahay kubadda ciyaarayay tiim kubadda ciyaarayay laba tiim kubadda ciyaarayay tiim waliba uu jecel yahay inuu goolasho dhalin badiyo haddii laga badiyo qolada ciyaaraysay ayarun bay ka dareeraan colaadna la isugu qaado sidaa daraaddeed taageerayaasha kulmiye oo laga yaabo inay wax badan
oo ay xusanayaan waxyaalihii la iska lahaa doorashada iyo nin caqli xumo wuxuu yidhaahdo iyo qaar ilaa imika wax wada wadayo waynu ka bisilahay inagu waynu ka bisilahay sidaa daraaddeed kuwa la doortayna waa kuwii aanu isnaqaanay uun waa kuweeni uun waa Soomaaliland dariska ta saddexaad aynu u aqbalaynaa waxaa ka mid tahay doorashooyin badan baynu soo marray natiijada markay timaado kuwii la aqbalay waynu ku guulaysanay dalkaa ku dhismay horumar baynu ku gaadhnay kuwii la isku diiday khilaaf ka yimidna dib u dhac iyo khasaare ayaa inaga gaadhay sidaa daraaddeed haddaynu kulmiyo nahay iyo intii codaysay ee ku soo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageeradeeda iyo xisbigaba waxaa ku waajiba oo aan leeyahay waxa inagu waajiba inuu gallay ballantaa dadka iyo shacbiga iyo qarankaba inaanu aqbalno natiijada waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalay natiijadii doorashada ka soo baxday oo uu ku guulaystay xisbiga wadani ayaan halkan ka caddaynaya shacbiga u sheegaya oo sharcina tahay sharaftuna tahay qaran dhisuna yahay ma aha maalin aynu murmayno oo isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo waa maalin aynu wada guulaysanay oo qarankeena kor u dhisnay oo aynu horumar ka soo ahayn in badan haddaynu kulmiye nahay haddana ka ahaanayno ummadda waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambalyeynayno madaxweynaha cusub la doortay cabdiraxmaan waa hambalyeynayna xisbigaana waa u hambalyeynaa guusha ay gaadheen qarankana waanu wada dhisaynaa kaalinteedii hormoodkeedna waa ka ahaanaynaa dhalinyarada ka xanaf qaadanaysa wax social mediaha ka jira iyo dadka caadifadooda kacsan tahayna waxaan leeyahay hala dego haddaad doonayso qarankaaga aad dhisto aqbal natiijada wax ka dhis qarankaaga waxaad qofkayga sayaanadu cadhoon waana dib u dhici qodobka saddexaad waxa weeye qaranka Soomaaliland maanta guul buu joogaa sidaa aad u codaysadeen nabadda ay qaran ku dhisaan madaxweynaha la doortay xilka loo dhiibay xil culus baa fuulaya ee la shaqeeya dulqaad badan hal la muujiyo qarannimada hal la dhowro waxa dhalinyarada iyo miidiyaha ka socday nin caqli xumo wuxuu deemiyay ciidan wax ku ka hadlayaan ayaan la qaadanin waxaan leeyahay Soomaaliland baa guulaysatay kulmiye horumar buu ka ahaa haddana waa ka ahaanaya Soomaaliland waxay noo ballana qaran iska Soomaaliland aqoonsigeeda oo aynu u wada guntanno hadba ninkaa yimid ee la keeno ee maalinta la doortana in la iska taago hawl badan baa u taala oo u baahan yahay in lala dhiso si aynu guul u gaadhno aad iyo aad baa mahadsantihiin dhammaantiin waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu